kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn Suudaan oo Mareykanka u magacawday safiir muddo qarni ku dhow iyo Mareykanka markii ugu horeysay ansixiyay arrintaasi dalalka khaliijkana waxay bilaabeen qabqabashada xubnaha kan ee ugu shaqeeya ama ka tirsan xisbiga dalkaasi Hindiya haysta ee dadka muslimiinta nacab ayagoo dadkii ugu badnaana jeelka u taxaabay shanta dal sheegtay inay dunida ugu awood badan yihiin dhinaca sirdoonka oo soo saaray go'aamo ku saabsan halka xanuunka asal ahaan ka yimid xanuunka faafaha daran iyo Mareykanka arinta wali ku qancila dalka Suuriya oo asagana wali ay duqeynayaan diyaaradaha dagaalka Yuhuuddu iyo waliba Iran oo iska bedeshay magacii lacagteeda iyadoo magacaas Carabi ahaa magac kale la baxday qodobadaas iyo kuwa kale daawadayaasha qiimaha leh idinku haya wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda waa 5 bishii May waa 2020 oo markale barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda aan ku bilaabay warar dheeraad ah ka soo baxaya diyaarad ku dhacday deegaanka Bardaale ee degmada Bardaale ee gobolka Bay taasoo la sheegay in ay ka duushay magaalada Baydhabo goor sii horeysay oo shalay galabhay diyaaradda ayaa la sheegay in laga leeyahay shirkadda African Express iyadoo la sheegay inay u kreysneed hay'adda la yiraahdo ICRC iyadoo arrimaha bini'aadanimada ka shaqeysa wararka soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradda laga yaabo in gantaal lagu dhuftay goor sii horeysay ayaa xildhibaanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay inuu ka mid yahay milkiilayaasha shirkadaasi African Express leeyahay Cabdiraxmaan Ibi ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in diyaaradda rasaas ay haleeshay ka hor intaysan cagaar dhulka dhigan iyadoo doonaysa halkaasi inay gaadhiso agab dhinaca caafimaadka oo ka yimid magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay wararku waxa ay sheegayaan in diyaaraddu meesha ay ku dhacday aad ugu dhaweyd goobta ay diyaaradu caga dhigtaan ama dhabaha diyaaraduhu ay ku soo degaan kana duulaan wararku waxay sidoo kale sheegayaan in diyaaradda ay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa sawirro goobta laga soo qaaday ayaa muujinaya in qiic aad u weyn uu ka kacay goobta sidoo kalena ay masiibo weyn ka dhalatay dhammaan 6 qof ayaa halkaas ku dhintay sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay maamulka koonfur galbeed ee maamul goboleedka ayaa waxay sheegeen inay baaritaan ku sameeyaan doonaan sababta iyo waliba waxyaalaha keenay in ay burburto diyaaraddu halka dagala socota daawadayaal wararkii wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo warbixin waaweyn ee dunida oo dhan daawadayaasha qiimaha leh ayaa nidii hayay warbixin dheeraad ah ee dalalka ayaguna xanuunku ka soo yaraanayo dhimashadiisa ayaa haatan waxa ku soo biirtay dalka Britain ayaa waxa hoos u dhac aad u weyn ku yimid dhimashada dadka iyadoo la sheegay in dhimashada dadku ay gaadhay marka ama hoos ugu soo noqotay wax uun ka yar 300 shalay waxaana waaxda dhinaca la socodka adeeg ama gacanta ku haysa adeega caafimaadka qaranka ee National Health Service NHS ay sheegtay in ay u muuqato arintu in ay hoos u soo dilaantay dhimashadii dadka wasiirka caafimaadka maxkamada caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay jiraan ayuu yiri taageero xooggan oo ay ka heleen app dhawaan Australia soo saartay oo tracing yiraahdo in uu wax weyn ka tarayo ayuu yiri dadka inay ogaadaan qofka xanuunka qabataasina ay ka qayb ka noqotay in dadku ay xanuunka soo ridanayo oo yaraado sidoo kale waxa uu sheegay in ay shaqada ay hayaan kooxda caafimaadka adeega caafimaadka qaranka dalkaasi Britain ee NHS ay tahay mid aad u weyn war qoraal oo ka soo baxay aqalka looga taliyo dalkaasi Downing Street ee ra'iisul wasaare Boris Johnson oo fadhiyo ayaa sidoo kale lagu sheegay in iyadoo wali loo diyaarsan yahay in dadka la caawiyo haddana ay muuqato in xanuunku uu hoos soo dhacayo taa macnaheedu ma aha ayaa la yiri in xanuunku uu tagay ama uu yaraaday ama khatartiisa in qofka uu qaado uu meesha ka baxday balse xigmada ayaa la yiri in xanuunka haatan uu soo yaraanayo marka loo eego hore soo badanayay dalka Mareykanka ayaa xanuunka wali sutida u sii haya iyadoo oo daraasaadadii ugu dambeysay soo baxaysay sheegaysay in Mareykanka xanuunka uu ku sii badanayo marka la gaaro bishan dambe ee June dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa ka digaya in 3,000 dhimashadu ay maalin walba noqon karto horraanta bisha June ama bisha 6aad ayagoo sheegay inay taasi tahay walaaca ugu weyn hadda dadka haysta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump goorreysii hadliyay ayaa xaqiijiyay in uu haatan aaminsan yahay in xanuunku uu yahay khatar aad u weyn isagoo markii hore marba gadaar isku qaadi jiray ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 100,000 oo qof oo Mareykan ay xanuunka ku dhiman karaan tirada haatan Mareykanka ayaa 70 ku weydaaratay iyadoo sidoo kalena soo ridashada dadku ay kor u sii socoto marka loo eego markii hore oo la aaminsanaa in ay xogaa ay hakatay waxaana la sheegay in dadka tarab ku soo daadanaya aysan waxba iska bedelin halka dagala socota daawadayaal wararkii oo cala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobadii warbixinay dhinaca waaweyn iyo wararkii ugu dambeeyay haatan Israel ayaa bartilmaameedyadii ay la dhici jirtay gantaalaha ee dalka Suuriya ku yaala ayaguna ku mashquulsan dagaalka sokeeye ku sii wada raadiyaha ciidanka Israel ayaa sheegay in la bartilmaameedsaday isla markaana la duqeeyay goob
ku taala gobolka Aleppo banaankiisa meel baadiye ah oo ah goob military oo lagu baaro qalabka militariga isla markaana lagu soobiyo rasaasta muhiimka waa dagaalada ay dalkaasi ka wadaan ciidanka Suuriya ee kula jiraan kooxaha sida ay sheegayso goobta ayaa waxa lagu tilmaamaa goobta la yiraahdo Al-Zafira oo bariga Aleppo ah ayaa gantaalo waaweyn ku soo daateen taasoo la sheegay in qaar la qabtay dowladda dalka Suuriya ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaalaha qaarkood oo ay burburisay ka hor intaysan soo caga dhigan ayay tiri goobo kale oo hor leh hase yeeshee waxay in qayb ahaan ay burburtay goobta ay gantaalaha la beegsadeen dowladda Israa'iil ayaa sheegtay dhawaanahan in kor u qaadayso duqeymaha Israa'iil ka geysanayso gudaha Suuriya tan iyo intii ay aragtay walaac iyo shaki soo duulay oo muujinayay in ciidan ka socda Xisbullah ururka la yiraahdo ay ka soo agdhawaadeen burleyda haysato Israa'iil ee Golan Heights haatana waxa ay wararku sheegayaan in qaac weyn laga arkay goobta ciidanka Israa'iil ayaa waxa ay bartilmaameedyadaasi ay inta badan beegsadaan ku tilmaamaan inay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadaan ciidanka ilaalada ee dalka Iran ee Al-Quds la yiraahdo kuwaas oo ayagu ay u arkaan khatarta ugu weyn ee gobolka haatan joogta si kastaba noqotay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in ninka la yiraahdo Naftali Bennett in Israa'iil ay weerarka ay qaadayso uu yahay mid ay uga soo horjeedo ama olole ay uga soo horjeedo ayuu yiri awoodda Iran ee ku sii xoogaysanaysa gobolka gaar ahaan deegaanka Suuriya dhanka kalena madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay arrin dadkiisa dan u ah iyo walaac ku saabsan ayaa waxa uu haatan uu sheegay in haddii xanuunka coronavirus-ka uu ku faafo dalkiisa uu noqon doono mid masiibo kaga taga wuxuuna sheegay in dalkiisa uu xaqiijiyay inay burbursan yihiin dhammaan kaabayaasha caafimaadku uusan iska caabi karin isla markaana uusan ka hortagi karin ayuu yidhi xanuunkan ama la dagaalami karin sidaa daraadeed wuxuu uga digay shacabkiisa in ay u dulqaataan waxyaalaha adag ee kasoo fool leh waxa uu sheegay in dhibaatada ugu xoogan ee haatan haysataa ay tahay in aysan haysan agabkii la iskaga difaaci jiray xanuunka iyo sidoo kale ayuu yidhi waxyaalihii kale u baahnaa in xanuunka laga hortago wuxuu sheegay in dhawaanahan oo dhan ay jiraan xanuunka inuu soo faafayo walow aan la ogeyn baa layidhi tirada rasmiga ah ee dalkaasi xanuunka ku faafay laakiin dowladdu waxay kaliya xaqiijisay 44 qof oo kaliya inuu xanuunkaasi soo ritay halka dagala socotaan daawadayaal waa wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobo waaweyn iyo warbixino kala duwan ee dalka Iran ayaa waxa uu bedelay magaca lacagtiisa sidoo kalena wuxuu ka gooyay jiifaradii ku qornaa lacagta qayb kamid ah sida ay sheegayaan guddiga dhaqaalaha ee dalkaasi Iran magaca lacagta Iran riyaal la oran jiray ayaa gabi ahaan laga bedelay ayadoo lagu bedelay magaca la yiraahdo Toman sida ay sheegayso waaxda dhinaca dhaqaalaha iyo lacagta oo qaabilsan dalkaasi sidoo kalena 4 eber ayaa laga gooyay lacagta waxaana la sheegay in markii u horeysay arrintan uu soo jeediyay goor hore xilligii madaxweynihii ninkii kaknaa markaasi mayalka adkaa ee loo jiray Maxamuud Axmed Nijaad kaasoo ku taliyay in lacagta laga gooyo 4 eber 2008 sidoo kale magaca riyaal laga bedelo oo lagu bedelo magaca Toman ugu dambeyntiina haatan waxaa la sheegay in arrintaasi la meel mariyay laakiin arrintu ay u taalo baa la yidhi in ay ugu dambeyn ay qaataan go-aanka guddiga sare ee loo yaqaano guddiga ilaalada jamhuuriyadda islaamiga ah kadib marka baarlamaanku ay soo ansixiyeen qorshaha afyeen u hadlay dowladda dalka Iran Ali Rabiici ayaa waxa uu sheegay in arrintu ay tahay mid lagu hubinayo isla markaana lagu meel marinayo wuxuu ku sifeeyay isweydaarsiga dhaqaalaha iyo adkeynta dhaqaalaha dalka Iran ayaa dhibaato xoogan waxay kala kulmaysaa dalal uu kamid yahay Mareykanka oo reer galbeeda kuwaasoo subtida u haya dhaqaalahooda isla markaana ku khasbay in ay aad iyo aad ugu dhaqaalahoodu u baaba'o ama uu dhulka u galo cunaqabatayno isdaba jooga ayaa dalkaasi lagu hayaa taasoo keentay in dhaqaalaha dalka uu hoos u dhaco sidoo kalena waxaa la fahansan yahay in lacagta magaca riyaal ay ka bedeleen dalal badan oo carbeed ay isticmaalaan inay muujinayso sida Iran uga sii calool go'ayso baa la yiri caalamka kale ee carbeed iyo kan islaamka oo ay arkaan in ay u raaceen dalalka kale reer galbeedka iyo dalalka cadawga ku ah ayagoo in badanna iyagu sheegaya in ay dhibaato xoogan ay ku qabaan dalalka carbeed oo mar walba laba dibleynaya ay leeyahay dalalka kale waxaana tan ay dad badan xasuusay taariikhda markii afka carabiga lagala dagaalami jiray dalka Turkiga oo ku bilaabatay iyaduna arrimo noocaas oo kale ah taasoo markii dambe ku dambeysay ilaa xad la wado in xataa quraanka lagu turjumo luqadda Turkiga oo ay sheegeen in ay uga tagayaan carabta luqadda carabiga
hay'adda lacagta adduunka IMF ayaa dhawaan waxa ay sheegtay in ay Iran doonayso inay xogaa lacag siiso laakiin Mareykanka ayaa la sheegay ilaa hadda in uu lacagta kaga taagan yahay oo uusan ogolayn oo lacag ka saaray oo uu leeyahay ma ogolin in Iran lacag la siiyo gorsii horeysay xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa waxa uu sheegay in laga yaabo in ay ogolaadaan haddii lacagtaasi la hubiyo ama la cadeeyo in lagu soo gadanayo dawooyin iyo waxyaalaha dadka daruuriga u ah oo aan sida caadada ah buuri aysan dalkaasi Iran ku soo gada doonin ama ku soo iibsan doonin hub iyo sanad military oo ay wax yeelo weyn ugu geysato danaha caalamka qaybta labaad ee wararka waxaa la dhinaca Cabdulwasiid Daawadayaal